okay waxaynu ku sixiri doonaa qodobkeena 15aad oo ah Cortana feature-ka 15aad oo ah Cortana is the feature of the Microsoft Windows 10 that gives and lets you to access calendar, emails, messages, power, and when the device is locked and voice حتى even wuxuu leeyahay voice controller buu leeyahay oo yani waa virtual assistant for Microsoft Windows weeye yani waa feature kulminaya waxyaabo badan oo kamid ah sida Gmail-adii ciwaanadii oo kale sida mataqaanay calendaradii emailkii message-kii power-kii ayaa access gareyn ka computer-kaaga ayuu dansan ama computer-kaaga loo ku jira so marka hadii aan Cortana ku tuso waa kan okay Cortana hadaa rabto halka Windows baad ka daa ad start menu kadib Cortana waa ku qori ka daa waa taas kadibna enter baad dhehaysaa Cortana halkan ka arkaysaa settingkiisii wixii yani qaabkiisa oo dhan halkan ka arkaysaa marka Cortana oo ku fiiraya in ku soo jeediyo ideas iyo yani reminders alert more in wax ku xusuusiyo mataqaana alert inuu sameeyo waxyaabo badan ku xusuusinaya marka Cortana feature mataqaana iska leh Windows 10 update ku ah kaas oo loo isticmaalo in mataqaana wax ku ogeysiiyo ama hadana uu xogeliyaa ama kaydiya ama haya yani waxyaabo sida message-yadii calendarkii powerkii yani waxa soo access gareyn ka dhaxata markii computer-kaaga log uu ku jiro ayaa soo access gareyn ka dhaca isagoo log ku jiro ayaa halka mataqaana waxa ka isticmaali ka dhaca okay isagana ku ogaanaya waa feature mataqaana qaab noocaas loo isticmaalo waayahay okay wuxuu u gudubnay qaybteennii ama casharkii part 4 casharkeena afraad ama qaybteena afraad features of Windows 10 ayay sii dhextibaaxayna qodobka ugu horeeya waa 16 20 ayuu 16 ka yahay marka waa advanced system performance ina horumariso waxqabadka system-kaaga ama qaabka uu shaqeynayo ina fast ka dhigto yani oo si mataqaana xawaare leh quality loo shaqeeyo oo advanced ah oo performance waxqabad so marka sidaba computer-kaaga performance-giisa oo dig u saari karaa oo soo sixi karaa okay ila soo waayahay adigoo halka jooga ayaa waxa tagaysaa my computer ba tagaysaa ama this PC waa kan right click ba dhehaysaa properties ba dhehaysaa property marka dhehdo dhinaca bidixda ayaa wax ku arkaysaa advanced system setting oo ku dhufan click ba siinaysaa kadib waxa dhehaysaa setting ba dhehaysaa setting marka dhehdo halkan يعني default أساس let a Windows choose what is best for my computer يعني أقوله أما كمبيوتر كإنه دورته أما system كإنه دورته وح كمبيوتر كوفي يعني so هذه مركز ربطه إنها كدك تو performance عليها adjust for best performance أيه تكتسار إذا كدب عليها apply كدب عليها أوكي أنت أسويه معنا performance يجي إنه حاجة متقنة كرقات وايه okay qodobkeena 17aad ee ku xiga wuxuu noqon doonaa task manager startup programs qaabkii mataqaana task manager waxa la dhahaa waa yani waxa weeye waa rowga hoose oo bottomka ah online-ka hoose ayaa task manager la dhahaa oo programyada isticmaalaysa koosi haysa ama lagu minimize garayo task manager ayaa la dhahaa marka startup programsna waa iyada ruuxda oo ku tusaysa qaabka loo fiiriyo programyada shaqeynaya ee computer-ka inta ku jiro okay ila soo hadaba si practical ay aragne hadii aad rabto task manager inaad tagto task manager waxa la dhahaa diilinta laga bilaabo halkaas ilaa iyo halka geeska kale marka task manager meel laba tagaysa right click ba dhehaysa task manager ba tagaysa task manager aad tagto aad wax aragnaa inuu shaqeynayo Camtasia wax ku duubeyno Microsoft Edge PowerPoint iyo Sticky afarta program ayaa daaran oo shaqeynaya hadii aad rabto inaad mid geliso tusaalahan Sticky click basiine kadib waad dhisa end task saas ku baxay ku helna dhamaas siinaysa way
taski barkuna waa sidaas, waa diilinta yartaa oo la keenayo oo buttonka ah rowga halka row ah, taas oo la keenayo mataqaan programyada si mataqaanay temporary ay u joogaan oo mataqaanaa hadhowdii marka wax ka casiinayso oo kale ah ama lagu minimis garayo si temporary. waayahay okay, waxaynu ku xigay qodobkeena 18aad oo ku saabsan virtual disk yani waa desktop mataqaanaa ayaa copy oo kale ah ama yani mataqaanaa laga sameeyay kii hore ayaa virtual disk dhihi karnaa ama desktopyo aan xaqiiqi ahayn oo kuwa caadi aan ahayn. marka haddii ay aragno practical kooda waa kan desktopkaas, adiga oo jooga computerkaaga ayaa wax tagi karaa halka ay ku qoran tahay task view ayaa click siinaysaa, kadib waxaa arkaysaa desktopyo badan baa arkaysaa. haddaa rabto marka desktop zaida inaad kusoo dirdo waxaad dhehaysaa new desktop oo balaasatan ah ayaa new desktop taabanaysaa, kadib desktop kale mid saddexaad mid afraad saasaa u wadaysaa intaasoo desktop noqonaysaa. markaa tan taabato desktop waxba oo marka desktopka qaabka labaad oo loo sameyn karo waxa weeye computer baa tegaysaa, open baa dhehaysaa, desktopka ayaa dul tegaysaa, right click baa dhehaysaa, kadib waxaa dhehaysaa send baa dhehaysaa, waxa wiilaysaa waaya send. markaa dhehdo waxaa dhehaysaa desktop create shortcut markaa irina wuxuu keenay shortcutkaasu keenay desktopka keenayo waa kaas shortcut labaad. taas labada copy ama labada shortcut ayaa sameyn kartaa oo loo sameynayo mataqaanaa virtual disk qaabka loo sameeyo. waayahay okay, haddaba waxaa arkaynaa qodobkeena 19aad wuxuu ku saabsan yahay BitLocker features. featureka BitLockerka waa feature aad u muhiim ah oo yani waa drive-kaagii ama flashtaadii ama storage-kaagi waxa kuu kaydsanayaan datadaada inaad ku xirato yani BitLock ama loo ku xirato ama password ku xirato baateen ku xiro waxaad ku xiro yani waa inaad sukood ku xirtaa drive-kaagii si mataqaanaa datadaadi kugu badbaado oo dadku kaaga taqaaban ama laga faragelin. waayahay haddaba seeba qaabkee mataqaanaa u sameynaya waa arrin kale weeye la soco waa qaaba kan iyadoo practical waa okay. BitLockerka haddaba waxaa ka tegi kadhaa laba qabood tegi kadhaa computer baa furi kadhaa oo yaxtee partitionkaaga dushiisa intaad tagto ayaa waxaa dhehaysaa right click, kadibna waxaa dhehaysaa turn on BitLocker. waa garan markaa BitLockerka fudho wuxuu ku saarayaa sida tan, kadibna waxaa dhehaysaa use unlock password iyo waxaad gelinaysaa 1 2 3 maya waxaad gelinaysaa tusaale ahaan abwaanka, tan waxaad gelinaysaa abwaanka waa gasay, kadib waxaad dhehaysaa next markaa dhehdo waxaad dhehaysaa save baa dhehaysaa. waa garanaa xaggee dhiganaysaa documentigaga dhigo, kadib waxaad dhehaysaa save baa dhehaysaa okay baa dhehaysaa next baa dhehaysaa, kadibna start encryption wakaas hadeer waxaa ku xiran log ayaa ku xiran mataqaanay drive-kayga log ayaa ku xiran. marka qaabkaas ayaa sameynaysaa oo fudud waa sidaas weeye. sida kale haddii halanka weydo control panel ayaa tegaysaa, kadib shaashadaada weynayso halkaas ayaa waxaad ka baaraysaa BitLocker waaya soo qabo waa kan BitLocker baa tegaysaa, tan baa dhehaysaa adee yani waa samaysan yahay. marka bartaasa ka maamulaysaa waxaaga okay. taas waa taas marka waa BitLocker waa qaabka security lagu xiro drive-kaaga ama mataqaanay hard-diskaaga ama flashtaada. waayahay okay, haddaba qodobkeena xiga haddii u gudubno BitLockerka way aragnay. qodobka xiga waa 20aad ee ugu dambeeya ee featureskeena ama lecture-keena wuxuu noqon doonaa temporary faileska, failasha unwanted faileska ah ama failasha aan loo baahnayn oo ku meel gaarka ah oo computerkaaga culayska ku keenaya.
siba isaga saari kadhaa siba ku garan kadhaa taasi waa taas. Okay haddaba inta soo taabsi iyadoo ah ila soco way marka rabto temporary files ka ina soo saaro waxaad tagaysaa start aad tagaysaa seriadaas ayaa wax ku qoraysaa run baa ku qoraysaa run korbu ku soo qabtay run baa dhehaysaa kadib waxaad dhehaysaa calaamada percentage ka ah laba xabo dhexdooda waxay gelinaysaa temp inta kaliya temp dib okay baa dhehaysaa wuxuu kusoo qabanaya hadda computerkayga aniga mataqaan dhawaan baa format gareeyay wax mataqaanaa recent files oo file badan oo isticmaala ma jiraan marka intaas ku jira intaas control a dheh right click delete dheh oo delete garay way waa tageen dhamaantood waa tageen qaab kala samayn ka daa oslayadii ah Windows R bata Windows tawan ka daa kadibna waxa dhigi ka daa private enter bades halka ruuxeeda wax ku qoranaysaa intaas ku qoraysaa private hadaan kugu celiyo Windows ka tagaysaa halkaas wax ku qoraysaa run enter bades halkaas wax ku qoraysaa private okay marka waxaad tagaysaa halkaas run ku qoranaysaa run marka ku qorato run ku dhufo private ku qoro waxaad arkaysaa Windows kaaga unwanted fileski oo badan oo loo baahnayn oo computerka culis ku keenaya hadda qaabkood files inay wataan laga yaabo kadib waxaad leedahay right click delete badaysaa okay wuxuu ku leeyahay this for or all the current items waxba hayso sameeyay madama iga kaxay okay waayahay waxa halka inoo ka casharkeeni 20 features ahaa featureski Windows 10 ka intii muhiimad ahayd soo koobnay waa engineer Cabdulqaadir oo idin leh insha Allah guul bidin rajeynaya inuu mataqaanay isticmaalkiisa fahantaan Windows kana hadii aad u bogi doontaan insha Allah ta'ala kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad jaamacadda Sahal Software. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.